marka khitaanku de ragga waa la isku waafaqsan yahay xadiidkii Bukhariina uu tilmaamaya ee xusayay Nabi Ibrahim isagoo 80 jir buu iskuday qaduum buu isku guday qaduumka gudinna waa lagu sheegay inuu qaato isticmaalay meel uu markaa joogayna waa lagu fasiray marka isagoo amarka Ilaahay u degdegaya markii gudniinka Ilaahay waajibiyay ayuu horay ka qaato hawsha dhaqso u fuliyay dirqaanu ku baxsaday oo uu isdaawici gaaray وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وحياب أوامر أبو إلهي كو امتحانه وكصبح دمركا ويسكو خلافا علماء كان فرعون قاول لوجيا وحاران يسوي الدواء الدم باللي قال يوم هبلها يرير وهو يدي يتي وحن سمينا يسون بشريمة دا قال حكم كيس كاسوني قال الله هذا حكم كيس ما صنع مسوى واجب مذاهبتا intooda badan waxay leeyihiin inuu tuu jiraa laakiin qaarkood waxay leeyihiin waa waajib laba madhabna waxay leeyihiin waa sunni ee waajib ma ahadiitha ku soo arooray ka dumarkana si ay u dhigaanba waa ducafa wala isku waafaqsan yahay xadiis qaa'ima ama istaagi karo oo gudniin dumar ka hadlayo oo ku cad inaanu jirin imma sahihun ghayru sarih wa imma sarihun ghayru sahih وحديث كعادو aan jirin oo aad u liita oo kii oranayay ummaatiyu nabigu la hadlayo markaas wuxuu ku yiri inanta gud oo taabsiyuuna xubinka waxba ka jari shumbi wala tanhaki fa innahu ahda lizawj wa anzaru lilwajh hadith athar معني sidaaha لكن وباتفاق المحدثين والعلماء والضعيف مره oo lama daliishan karayo kaasi waa صريح غير صحيح بدي سجون أو حجرا صحيحة لكنه غير صريح وأنكو عطين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا قدنين مركا يستابتان لبدا قدنين هذا يستابتان ما يريقوا واجبي مركا حديث باب قدنين كما هضليه لكن وحكا هضليه باب الطهارة نينكا إيه قبرنا لبدا وذا حبنات هذا يستحمران أي وحدة إيلاج لقلت المامي كرسة ميان قلمو بيبيانا إيمانينه ما يريقوا واجبي بوكا هضليه وباب الغسل ما يريقوا جنابه كورما يا رسول لكن هلكا laga yar calaamadiyo waxa weey laba gudniin buu nabigu sheegay taas waxa laga yar urinayaa bay dhahan gudniinku wax jira inuu yahay waa qoliyaha markaa tilmaamaya inuu xadiidka saxiix ah daliil noqon karo saxiix uu yahay laakiin waa غير صريح kuma cada oo nabigu gudniinba kama waramayna dhahaaru ka waramayay kama uu waramin labadan gudniina istaabtay maxaq baa lagu guday mise baadil baa lagu guday ilaa in xaq lagu guday labadan gudniina istaabtay waa suuragal in baadil lagu gudayo laba gaf lagu guday una ishelaan oo labadoodaba maaragtaan waliba ruuxii dumarka ahayd marka laga hadlayo xaq iyo baadil sax iyo khalad taa uu banbixin iyo sugitaankeeda iyo la'aanteeda ee wuxuu ka hadlon maydhin waxana iska jirayay dee dhaqamadii carbeed oo waqtigii hore iska jiray oo gudniin iyo wax kala lahaa in ahkaamtuna ay timid oo sharcigana la dejiyay marka dad bari hore la guday oo jaahiliyadii la guday haday isu tagaan arin noocaas kuwana way noqon karaa qaar kalena way noqon karaa marka waxaynu uga jeednaa daliil sugan oo ku cad ma jiro saadaradeed ba waa waajib iyo waa sunne labada qowl baa yimi qayb ka midina waxa bay yiraahdaan ma la taabanayo laana qofka bani aadamka jirkiisu karaam u leeyahay ixtiraamna uu leeyahay siba ilmuhu markuu yahay ilma daa'ir sharcigu wixii markaas isaga maslaxadiisa ilmaha yar ayuun baa caafimaad ahaan iyo tahaar ahaan ba loo qaban karaya oo mesela hadii cudur laga daaweynayo iyo hadii buro laga goynayo mar walba waxa loo eegaya maxaa dib soo gaaraya ilmaha yar waalidku xaq uma laha ilmaha yar wuxuu doonayo inuu ku sameeyo oo mar iligu fujiyo dhaalka tacaawanka saaraya marna uu raahil ibdaqlan ka goynaya mar xoqad baan ka goynaya uu qufaa waxa soo dhan xaraan bay kay ilmaha yar naftiisu dawa amaana sida qofkan weyn ba naftiisu amaana ay ugu tahay saadaradeed wixii sharcigu ku ogoliyay isaga maslaxadu ah ayuu mal qaban karaya inuu maslaxadu yahay inaanu ahayna adigu xadidi meesha dhakhaatiirta xadidaya cida aqoonta u leh ayaa xadidaysa marka jafidan caruurta la iska jafaya samboor laga jabinayo daliilkana loo keenayo la oranayo caadaha reedo la diidaa caruur la'aan bay leedahay kuleey waa daliilkii lagu sii shaabadaynayo waxaas ma jiraan ilaa daqlaga laga ma jari karo
ilka dacwo lagama saari karo samboor lagama jabin karo nabigaaba diiday calayhi salaatu wasalaam buro lagama goyn karo gudniin laguma samayn karo ilaa in daliil adag la helo mooyaan halkaasay culimana qaarkoodna mariyeenoo waa midhka ay ugu jecel yihiin hay-aduhu midhkaasay ka helaan ninka yidhaahda bahalkaasi ma jiro suuqiisu waa xaami marka iyagu kama eegayaan xagga sharci kama eegayaanoo dee diinu ma joojinayaane waa bahalka aidiska iska ilaaliyo kondhomka ka gashada oo kale wey waxay ku leeyihin kondhomka iska gashada marka sinaysanaysaan aidiskana iska ilaaliya sinadana iska wada oo kondhomka marka isku qolan mayhin marka siday uga hadlaan inagu ugama hadlayno laakiin inagu nadara sharciya adaa'an liamaanati diin wayata aynu ka hadlaynaa oo masalada marka laga hadlayo aqwaasha culimada oo dhan waa in la soo bandhigaa maxay yidhaahdeen marka cawnulmacbuudka waxa uu kaga hadlayaa sheekhu markuu baabkan ka hadlayo in culimmadu ay isla waafaqeen in daliil sugan oo ku soo arooray aanu jirin gudniinka dumarka sidaa daraaddeed aan waxba la taabanayn waad ka akhriyi karaysa waad ka raajici karaysa idaafatan ilaa dalik markay culimmadu ka warramayaan daraasadahay sameeyeen waxay leeyihiin iskuma mid aha dumarka caalamka xubinkoodan yaro la taabtaa qaar buu muuqdaa qaarna maba muuqdaba marka kuwa aan muuqanin waxba loo dhowaanba maayaba taasina waa arrin kale oo kale takhasuskeeda iyo daraasadaheeda leh cumuuman madaahibtu way u bateen waxaa jira waxyaaba ay madaahibtu u badan yihiin laakiin daliilkiisu liito ayaa jira oo markaa daliilka ay soo qaadanayaan uu daciif yahay waa jira marka khitaankaas kiisaa yara sunniga waa la sheegaa qayb ka midina culimada hadduu qofku iskaga tego dembi kuma dhicin bay idhahan kol haddii daliil ilaahay ku addoonsado qawi aanu jirin waxaa kaloo jira sunniga laftiisa baa la isu dhex fadhiyaa oo dumar maqas dheer sitaa odhanaya sunni baanu samaynayna khatar ba ilmi yaraa gelinaya sunni wax aad u sahlan oo ka dhiijina baa lagu tilmaamaa una baahan khibrad caafimaad iyo qofku inuu aqoon u yeesho laakiin haddii xubinkii wax la yeelo qodobkii uun ka maqan yahay kaasina sunni ma ahee waa nooc kaloo jafida isaguna marka arrintaa aad ha looga fiirsado oo ubadka yaryar yaan lagu tacadiyin masalada maaragtay seminaarkeedii iyo murankeedii iyo hawsheedii oo badatay daraaddeed ayaa waxay noqotay inaynu isdul taagno oo bal aqwaasha aynu maaragtay wixii nooga muuqday